Cabdullaahi Aadan Kullane oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee hay'adda NISA iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda u ah Galmudug ayaa halkaasi xalay ka bilaabay kulamo ay ku raadinayaan kuraas baarlamaan oo ay doonayaan labadoodaba. Labada nin ayaa siyaasad ahaan kala fogaa waxaana u dhaxeeya cadaawad weyn oo dhinac waliba ah, balse waxaa kulmiyay inay Dhuusamareeb wada yaalaan kuraasta ay doonayaan inay ku guuleystaan ee ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee 11aad. Cabdullaahi Kullane ayaa ka yimid dhanka magaalada Cabudwaaq oo maalmihii dambeba uu ku sugnaa, waxaana duleedka Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay ciidamo fara badan oo wata gaadiidka dagaalka iyo kuwa kale, iyadoona la dejiyay guri ku yaal gudaha Dhuusamareeb si uu u tartamo kursiga ay sumadiisa tahay Hoob 40 oo beeshiisa ay leedahay 5 maalin ka horna ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka maamulka Galmudug. Dhinaca kale, hogaamiyaha xisbiga wadajir siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan mid ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa galinkii dambe ee shalay gaaray dhankiisa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, halkaas oo si weyn ugu soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug, saraakiil ciidan, odayaal dhaqan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay Cabdiraxmaan una shaaciyay inuu yahay musharax xildhibaan, wuxuuna yiri waxaan u tartamayaa mid ka mid ah kuraasta deegaan doorashadooda ay tahay Galmudug, waxaana rajaynayaa doorasho hufnaan iyo daahfurnaan leh oo aysan noqon mid la musuqmaasuqo. Inkastoo uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kursiga u tartamaya ee golaha shacabka, haddana waxaa la wada ogyahay inuu yahay kursiga ay sumadiisa tahay oo 138 kaas oo hadda uu ku fadhiyay xildhibaan Siciid Nuur Qayliye Siciid Gariish. Hoob 138 oo ka mid ah kuraasta guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka dhankiisa ay shaaciyeen 5 maalin ka hor ayaa lagu wadaa in doorashadiisa lagu qabto toddobaadkan soo socdo si gaar ah maalinta Axadda. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo siyaasi weyn oo ka soo horjeeda muddo badan madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa haatan cadaadis xooggan uu kala kulmaya filla Soomaaliya oo rabtay inay dhaafiso kursigaasi, inkastoo kalsooni uu ka haysto beeshiisa oo sanadkan la siiyay kursiga isaga. Hogaamiyaha Galmudug Qoorqoor oo si toos ugu xiran filla Soomaaliya ayaa la sheegay inuu dhankiisa lagu qasbayo inuu sameeyo dariiq walba oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ku dhaafin karo kursigaas, balse arrintaasi Qoorqoor uu ka biyadiiday maadaama kursigan aysan noqon karin ergadiisa kuwa been abuur ah lana boobi karin. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku sugan Dhuusamareeb ayaa bilaabay xalay kulamo kala duwan oo la qaadanayo odayaasha iyo waxgaradka caasimadda iyo beelaha iskale kuraasta waxgaradkooda odayaashooda, kuwaas oo kaga codsanayo kursiga ay sumadiisa tahay 138 oo ku tartamaya sanadkani. Kursigan waxaa hore isugu soo sharaxay musharaxiin raadinaysa oo qayb ka ah Xasan Cadde, Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacadde, xildhibaanka hadda ku fadhiya kursiga Siciid Nuur Garwiish, balse Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacadde ayaa qayb ka ah mas'uuliyiintii shalay ku soo dhaweysay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, iyadoona xogaha hoose ay sheegayaan in dhammaan bay u tanaasuleen shakhsiyaadkii kursigan isku soo taagay kadib codsi ka yimid beesha iska leh maadaama sanadkan la siiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Dhankiisa Cabdullaahi Kullane oo ka mid ahaa xulufadii Farmaajo, Fahad Yaasin agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka, haatanna la taliyaha amniga qaranka Farmaajo ayaa dhankiisa xalay magaalada Dhuusamareeb ka bilaabay kulamo kala duwan kuwaas oo la qaadanaya madaxda Galmudug, waxgaradka iskale kursiga Hoob 40 uu tartamayo oo la shaaciyo dhankiisa Axadda soo socota doorashadiisa la qaban doono. Kullane ayaa u sharaxan kursiga ay sumadiisa tahay Hoob 40, waxaana hadda ku fadhisa xildhibaanad Nafiso Faarax Jaamac oo laga soo doortay waqooyiga gobolka Galgaduud. Musharaxnimada Kullane waxaa la fahansan yahay inay qayb ka tahay qorshe ujeedkiisu yahay in doorashada golaha shacabka lagu soo saaro saraakiil ka tirsan NISA si ay u helaan xasaanad kaas oo qayb uu ka yahay Fahad Yaasin Farey iyo Kullane horena Saadiq Joon uga tirsanaa jiray Dhuusamareeb lagu doortay. Taliyaha ku meel gaarka ah NISA Yaasiin Cabdullaahi Farey ayaa hore dhankiisa Farmaajo iyo Fahad ugu guuleysteen inay u boobaan kursiga ay sumadiisa tahay Hoob 67, taas oo arrintiisa ay dhalisay xaalad hubitin la'aan ah
oo xiisad hor la kicisay. Kullana ayaa ka socda dhanka fila Soomaaliya iyadoona qorshuhu yahay in kursigaasi loo dhaco, balse musharaxiinta kula tartamaysa durbadiiba waxaa soo wajahda rajo xumo badan oo ay qabaan maadaama uu noqon doono kursi loo xiro Kullane oo aysan musharaxiin badan marka laga reebo milxiisuusan kula tartamin. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga Wadajir iyo Cabdullaahi Aadan Kullane oo kamid ah saraakiisha sarsare ee NISA ayaana dhuusamareeb ku wada sugan, inkastoo aragti ahaan ay kala fog yihiin haddana waxaa mideeyay kuraasta deegaan doorashadoodu ay tahay caasimadda Galmudug oo ka dhici doonto magaaladaasi. inta ayaan ku soo gabagabanaynaa warbixintan gaarka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali Barays. saaxiibayaal muuqaalka hadduu ku soo gaara sii share garay saaxiibadaada gaarsii page-kana ku soo biir leegtana waa inoo dhiirigelin mahadsanidin.